madaxweynihii hore ee Puntland ahna ra'iisul wasaarihii hore ee soo maray dalka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka kadib isbeddelkii ka dhacay Soomaaliya 15kii May ee sanadkii hore 2020. Gaas oo u warramay telefishinka Universal ayaa aad u bogaadiyay shaqo wanaagsan oo uu ku tilmaamay in ay la timid dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Siyaasigan ayaa si gaar ah madaxweynaha ugu ammaanay go'aankiisa ku aadan xoreynta dalka si looga saaro kooxaha Al-Shabaab. Waxa kale oo intaasi ku sii daray in dowladdu ay fursad ka heshay kacdoonka shacabka ee ka bilowday gobolka Hiiraan, kaas oo sare u qaaday dagaalka socda. Madaxweynuhu mudnaanta uu siiyay la dagaalanka Al-Shabaab runtii aad baan u bogaadinayaa, waana waxa kaliya ee hadda lagu qiimeyn karo waxqabad dhab ah oo muuqda oo aan si oran karno dowladdu waa ay ku faani kartaa intaas waaye, ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Sidoo kale waxa uu ku ammaanay dowladda sida ay u shaqeynayaan hay'adaha dowladda, gaar ahaan madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dowladdu waxa ay u muuqataa dowlad wada jirta oo madaxweyne, ra'iisul wasaare iyo wasiirro oo wada shaqeynaya bay u egyihiin, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Cabdiweli Gaas ayaa tilmaamay in weli shaqo adag laga rabo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, maadaama ay yihiin saaxiibo horey u soo wada shaqeeyay. Niman saaxiibo ah oo isku xisbi ah ayay ahaayeen labada nin, laakiin shaqo ayaa laga rabaa, ayuu mar kale Cabdiweli Maxamed Gaas yiri.